halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa duhurnimo khamiisa 9 bisha abriil sanada 2020 gabi ahaanba barnaamijkeennan waxaanu kusoo qaadan doonaa wararka la xiriira cudurka safmarka ee coronavirus. aanu ku bilownay duqa magaalada muqdisho oo sheegay in cudurka coronavirus ay dad badan ugu ildaran yihiin gudaha magaalada caasimadda halka qaar kalena ay u dhinteen oo qaarkood isagu u yaqaan. runtii magaalada muqdisho waxaa laga yaabaa dadku inayan ka warqabin waxaa soo gaartay bukaan cudurkaas waa soo gaaray dad badan ayaa u ildaran qaarna waa u dhinteen anigu aan garanayo. ra-iisul wasaaraha talyaanigan waxa uu ka digay in midowga yurub uu guuldarraysan karo hadduusan garab istaagin dalalka midowgaas ku jira ee ay dhibaatada coronavirus ku habsatay, iyo bangiga adduunka oo saadaalinaya in dalalka ka hooseeya saxaraha afrika ay markii ugu horreysay muddo rubac qarni ah geli doonaan dhaqaale kududsi xilligan lagu guda jiro cudurka coronavirus ee caalamka halakeeye. qodobadaasi oo kuwo kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray maxamed cabdiraxmaan sheekh anigu Cabditax Ibraahim Caga yarna in la socodsiinaya, balse marka hore barnaamijka sida caadigeed waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Ciise Xaaji Cabdulciise. mahadsanid cabdi fataax. ra-iisul wasaaraha talyaaniga Giuseppe Conte ayaa ka digay midnimada midowga yurub inay halis ku jirto haddii guddiga aysan doonaynin inay caawiyaan dalalka cudurka coronavirus uu saameyn ku yeeshay. Mr Conte ayaa doonaya in dalalka guddigaasi ku jira ay wada qaybsadaan deymaha haatan dalalka la daaladhacaya. dowlad goboleedyada dalka Japan ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee dalkaasi inay qaado tallaabooyin aad u adag si loo joojiyo faafitaanka cudurka corona. caasimadda Tokyo ayaa maalin walba diiwaangelisa tirada ugu badan ee dadka xanuunkan uu soo ritay. dowladda Sri Lanka ayaa fududeynayso xayiraadii bishii aynu soo dhaafnay ee dalkaasi ku soo rogtay si loola tacaalo faafitaanka fayraska corona. dowladda ayaa waxay shaaca ka qaaday in badowga saarnaa 19 deegaan la khafiifini doono muddo koobanna saacadood ilaa 14 bisha abriil. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku baaqay midnimo xilli ay hay-addu cambaarayn joogto ay kala kulmayso madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. maruu shalay qabtay shir jaraa'id agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus waxa uu difaacay shaqada WHO waxaana ku baaqay in lasoo afjaro siyaasadaynta fayraska COVID-19. Trump waxa uu sheegay inuu ka fikiri doono in Mareykanka uu ka jaro dhaqaalaha uu siiyo hay-addan. WHO-na waxay ku adkeysanaysaa in madaxweynaha waxa uu ku eedeeyay WHO inay la safan yihiin Shiina. waxa uu sheegay in hay-addu ay ka gaabisay waxqabadkeeda xanuunka safmarka. Dr Tedros ayaa beeniyay hadalka madaxweynaha waxa uu sheegay inay u dhow yihiin dal walba oo aysan cidna gaar u xigsan. shir jaraa'id uu ku qabtay aqalka cad madaxweyne Trump waxa uu sheegay in hay-adda caafimaadka ay shaqadii loo igmaday mudnaan siiso. When he says politicizing, he's politicizing. That shouldn't be. But look, we spend... marka uu leeyahay wuu siyaasadeeyey isaga ayaa siyaasadeeyey sidaas maba ahaba, laakiin eeg waxaan ku kharash garaynaa $450 bilyan $452 bilyan waa ku dhowaad $500 bilyan sanadkii hore, 100 milyan sanadihii ka horreeyey. waa inay sidaasi ka fiican sameeyaan. Almost 500 billion last year, hundreds of billions in previous years. They got to do better than that. booliska magaalada Delhi ayaa xabsiga u taxaabay nin weerar u geystay 2 gabdhood oo dhakhtar ah kuwaas oo ku eedeeyay inay faafinayaan cudurka coronavirus. waa weerarkii ugu dambeeyay oo ka mid ah weerarada iyo aflagaadada lala beegsanaya shaqaalaha caafimaadka dalka Hindiya. isbahaysiga uu hogaaminaya Sacuudiga iyo Yemen ayaa isha ku hayay xabad joojin hal dhinac oo socon doonto muddo 2 toddobaad ah, laakiin waa la kordhin karaa. isbahaysigan ayaa dagaal kula jiray fallaagada Xuutiyiinta oo ay taageerto Iran muddo 5 sano. ugu dambeyntiina dowladda Afghanistan ayaa sheegtay inay sii daynayso 100 kale oo maxaabiis oo Taliban ah maanta, taasoo qayb ka ah heshiiska u dhaxeeya ururkan iyo Mareykanka.
guddiga amniga qaranka ayaa la sheegay inuu ka baaraandegaya sii deynta ilaa 1,500 oo maxaabiis maalmaha soo socdo. warkii dunidana waa naga intaas dib badan kugu celiya cabdifataax iyo qaybaha kale ee barnaamijka. aad ay u mahadsan yahay ciise xaaji cabdulaahi oo kaasi ah oo meel ka baxsan istuudiyaheena warka nagala socodsiinaya. halkaad kala socotaana waa BBC. dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aanu ku bilownay duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in cudurka coronavirus ay dad badan ugu ildiran yihiin gudaha magaalada caasimadda, halka qaar kalena ay u dhinteen, kuwaas oo qaarkood uu isaga laf ahaantiisa yaqaan. cumar filish ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay halis weyn oo ay tahay in dadka magaalada ay ka fijignaadaan oo ay qaadaan tallaabooyinka ay caafimaadka amrayaan, guryahoodana ay joogaan. walwalka iyo walaaca ayaa waxaa sii kordhiyey baa laleeyahay dad ku nool magaalada muqdisho kadib markii ay ogaadeen in cudurka coronavirus isbitaalka ku yaal magaaladaasi muqdisho uu ugu geeriyooday qofkii ugu horreeyey ee Soomaaliya cudurkaasi ugu dhinta. haddaba faahfaahinta wararkaasi waxaa inoo haya oo haatan khadka taleefanka toos ugu jira waryahayaga magaalada muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. bal Ibraahim inoo waran. waad mahadsan tahay cagayare. waxaa soo kordhaya walaaca la xiriira in uu cudur ku bilaabay in uu bulshada ku dhex faafo kadib markii la ogaaday in qofkii u dhintay cudurkan oo ah qofkii ugu horreeyey ee gudaha Soomaaliya ku dhinta oo ah nin 58 jir ahaa in uu cudurka ka qaaday gudaha wadanka oo aanay jirin safar uu horey u galay, iyo sidoo kale 4 kiis ee cusub ee xalay lagu dhawaaqay ee cudurka ah ee in laga helay magaalada muqdisho dhammaantood waxay ahaayeen dad gudaha ku sugan. duqa caasimadda muqdisho Cumar maxamed cumar filish saaka waxa uu ka hadlayay waddo cusub oo uu dhagax dhigay waddada Generaal Daa'uud oo burbursanayd. waxa uu sheegay in walaac badani uu jiro islamarkaana uu cudurkaasi gudaha magaalada ku faafay. ma uu sheegin tiro rasmi ah, laakiin waxa uu sheegay in uu yaqaano dad cudurkan u dhintay iyo kuwo kale oo uu cudurkaasi soo ritay intaba. magaalada muqdisho waxaa laga yaabaa dadku inayan ka warqabin cudurkaas waa soo gaaray, dad badan ayaa u ildaran, qaarna waa u dhinteen. anigu aan garanayo, qaar aniga garanayo aan dibad ka imaan oo dalkooda joogay ayaa ku dhintay, oo qaarna la aasay, qaarna hadda aan weli la aasin. arrintaas marka waa arrin halis ah, si fududna loo kala qaadi karo. sidaa darteed tacliimaadka iyo talooyinka laydisiinayo oo dhakhaatiirta iyo meediyuhu uu bixinayo waa in sida uu yahay loo qaato. haddii meel walba laydinkaga fududeeyey inaad tidhaahdiin waa been, waxba kama jiraan, taas waa niyajab. waa dhab, waa jiraa, ma jiraan wax aan idinkaga sabanayno inaan baa idiin sheegno. waa tahay kaasi waxa uu ahaa cumar maxamed cumar filish duqa magaalada muqdisho. Ibraahimow, bal ka waran walaaca ka jira magaalada muqdisho ee cudurkan uu sababay gaar ahaan isbitaalada. cagayare, markaad eegto kiiska dhimashada ah iyo sidoo kale kiisaska cusub ee lagu dhawaaqay xalay, durba walaac ballaaran ayay bulshada gelisay. 2 dhakhtar oo ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka ayaa ka mid ahaa dadka kiisaska cusub ee cudurka laga helay, kuwaas oo aan horey u safrin waayadan dhow kuna sugnaa magaalada. laakiin saraakiisha wasaaradda caafimaadka waxay sheegayaan inay ahaayeen dadkii safka hore uga jiray la macaamilka dadka cudurka laga baarayay ama dadkii cudurka laga helay intii lala macaamilayay. dabcan marka waad arki kartaa iyagoo shaqada ku jira oo kooxda caafimaadka ee gurmadka ku jirtay in cudurkii ku dhacay qofka kale ee dhintayna isna in gudaha magaalada uu isna cudurka kula dhacay aakhirkiina ugu dhintay. walaaca kale ee jira waxa weeye in qofka dhintay uu markiisii hore isbitaal gaar loo leeyahay oo magaalada ku yaala isbitaalada privatka ah uu muddo jiifay, islamarkaana uu la macaamilay dad fara badan. isbitaalka uu jiifay waxaa la yidhaahdaa aadan cabdulle, waxaana la hadlay madaxa caafimaadka ee isbitaalkaasi Dr. maxamuud saahid maxamuud, waxaana weydiiyey kiiskaasi sida uu ugu yimid iyaga. kiiska markii hore wuxuu ahaa oday xanuunsan Soomaaliyeed oo pneumonia ayaa uu qabay. marka odaygan oxygen buu u baahday, oxygenkaas ayaa serious ka dhigay xaalkiisa, laakiin calaamaad qandhadii iyo quficii ma lahayn. sidoo kale taariikh oo safara ma lahayn ama ruux safar ka yimid oo yimid ma jirin. oday waayada Soomaaliyeed uu ahaa. marka inaan ku fakarno corona suurtagal waa ahayd, laakiinse waa laga horreeyey. marka si caadi ayaan antibiotic iyo ugu daaweynayna, laakiin annagoo ku talagelayna inay suurtagal tahay ayaa waxaan ka dalabnay qolooyinka dibadda u diri jiray tastiyada oo lagu hubsanayo inay qaadaan sambal
sambal bay qaadeen marka muddo badan waa soo daayeen dee annagoon hubin wixii oo positive ka ah inuu yahay marka si caadan oo la mucaamalaynay habeen hore inba ay soo sheegeen saacad dambe weliba isla saacadiiba waxaan qaadanay go-aan sax ah oo shaqaalihii maamuli jiray ayaan hore u wada iyo takhtarkii mas-uulka ka ahaa sidoo kale ambalanskeena ninkii weli xataa meeshaan gelinay iyagii baa la kontroolay iyagii baa testiyaal laga qaaday hadday positive yihiin haddii kale kiiskii marka annaga intuu noo joogay dee oxygenka mogi intiisa kale iska fiicnaa laakiin markaan u gudbinay isbitaalka martini meesha ayuu ku dhintay dr saahid dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii caafimaadka iyo darawalkaas hadda aad ka hadlayso xaggee joogaan hadda xaggee ku dambeeyaan martini markay tageen test baa laga qaaday iyagana guryahoodan u dirnay oo inay meeshooda ay hubsadaan ilaa jawaabta ay soo baxayso marka guryahooday iyaga self isolation ay galeen oo nin walba gurigiisii ayuu ku hakiyey oo ciyaalka xataa waa ka fogaadeen marka saas ilaa jawaabtaan sugayna weli lama ay soo bixin imise maalmood buu bukaankaasi isbitaalkiina jiifay 9 ilaa 10 bir taqriiban saan isleeyahay dabcan waa waqti aad u badan marka dadkii kala duwanaa ee uu la kulmay soo ma jiri karaan kuwo weli sii jooga isbitaalka oo hadda ka shaqaynaya maya annaga marka horeba un kastoo aan shakiga un baan iska qabnay moogtahay marka dad yar baa la macaamuli jiray xagga shaqaalaha haddii la yidhaahdo oo iyo qol isaga u gaar ah goormay soo baxaysaa natiijada kalkaaliyaasha iyo dhakhtarka iyo darawalkii ambulasta la qaaday baaritaanadooda shalay galabaa la qaaday saacad dambe marka waxaan isleenahay ilaa maanta galabta waa ogaanaynaa jawaabtooda dr saahid haddii dhakhtarkii iyo kalkaaliyaashii la kulmay iyo darawalkii ambulastaba aad hadda guryahooda u dirteen sow intaasi lama kulmin intiina kale ee isbitaalka joogta haddii dhakhtarka ay tahay iyo hadday kalkaaliyaasha tahayba isbitaalkeena uma qabalebeysna meeshii la geyn lahaana martiina ahayd waa haddii laakiin dukaanka marka horeba beginning uu kugu soo galo inuu covid yahay waa taqaana saa u macaamilaysa iyo saa isaga ilaalinaysa laakiin ruux bukaan caado isbitaalka jiifa wixii la kulmay wixii la istaagay wixii qolka galay iyo wixii salaamay maaragtay reerkaa u dhawaaday iyo meesha maba jirinba covid jawaabta daahadayna door bay ka qaadatay maxaa jira jawaabta waxaa loo diray aan noqon annaga nairobi annaga fara kumayna taas maray soo laabanayso way daahday runtii aad bayna u daahday ilaa haddana maxaa la yidhaahdaa annaga say u taalo arrinta waxaa waaye shaki weyna nagaga jira maaragtay idinku inaad iskarantiishaan soo maaha hadda oo isbitaalka aad xirtaan mar haddii kalkaaliyaashiinii iyo dhakhtarkiiniba ay la kulmeen bukaanka lagama yaabo inaan waxayno taas maxaa jira absolutely kuwii la shaqaynayaba hadday negative soo baxaan maxaan karantiinaynaa kuwii kale laakiin weli natiijadoodii lama hayo soo maaha natiijadoodii waa kala saleedayaa la taagan oo baraha bulshada ku dhigay isbitaalkii oo ka hormarayba waxaa hadda sheegaysid oo dhahaya isbitaalkii waa xiran yahay waana laga kala tegay dakhaatiirtii waaweynooda xataa ka shaqayn jirta waa la xayiray wax khadamaada oo ummadda u qabanaya ma jirto waa la xiray lasoo taagan maaragtay banaanka si iyadoo haddana isbitaalkiina dhex jooga aan kaala hadlayo shaqadii emergency wax walbana waa socnaa waxaa kaloo nagu maqaalo ah intii bukaanku isbitaalka jiifay in ay soo booqdeen ehela badan culimo qur-aan saaraysay dadkaas iyagu xaggee ku dambeeyeen waxaan yeeli jirnay qolkaas banaankiisa ayaan kuraas u dhigi jirnay marka way ku akrin jireen qur-aankooda way bixi jireen dadkaas hadda kadib in la raadiyo ma ogiya hadda un lama ogaan karo xataa tiradooda intay ahaayeen kaas waxa uu ahaa dr maxamuud saahid maxamuud oo ah agaasimaha caafimaadka isbitaalka aadan cadde ee gaarka loo leeyahay magaalada muqdisho waxa uu warramaya waryahayaga ibraahim maxamed aadan oo kasii horreeyey oo faahfaahinta wararka ku saabsan coronavirus ee magaalada muqdisho ina la socodsiinayey bal markana aan siiyo qaar ka mid a dhegeystayaasheena facebook ra'yigooda halka kaga soo qoray fursadda fu'aad cabdulaahi cumar oo jooga magaalada cabudwaaq wuxuu leeyahay duqa magaalada muqdisho ee sheegay in dad badan ay la ildaran yihiin xanuunka coronavirus waa arrin walaaceeda leh waana in la raacaa tilmaamaha caafimaadka ay bixinayaan si uusan cudurkan usii faafin waxaa ra'yigaasi ra'yi ku dhow qabaa maxamed axmed bulaale oo taleex ka soo qoray waxa uu leeyahay hadalkaasi ka soo yaray duqa magaalada muqdisho in xanuunka coronavirus dad badan ay u ildaran yihiin halka qaar kalena ay u dhinteen waa arrin walaaceeda leh waxaana in dadku ay qaataan talooyinka caafimaad ee la siinayo si ay guryaheedana u joogaan oo ay dhagaadeega iska dhaafaan waxaan qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c ee facebook b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba saacaduna haatan waxay ku siiqaysaa 2 duhurnimo iyo 14 daqiiqo waqtiga bariga Afrika isla wararka coronavirus ra'iisul wasaaraha wadanka Talyaaniga ayaa waxa uu cudurka safmarka ee coronavirus ugu yeeray in uu yahay tijaabadii ugu weyneyd ee uu abid wajahay midowga Yurub Giuseppe Conte ayaa waxa uu ka digay in midowga ay suuragal tahay in uu guuldareysto hadduusan qaadin tallaabo adag oo ku garab istaagaya dalalka xubnaha ka ee uu waxyeeleeyay cudurka coronavirus ama COVID-19
talyaaniga oo ah dalka ugu daran ee cudurkan uu saameeyey ayaa waxa uu doonayaa in taas ay hadda la sameeyo oo deynta ay wadaagaan dalalka xubnaha ka midowga. faahfaahinta warkanna waxaa isku soo duwayna la socodsiinaya Faarax Lamaane. hadalka ra'iisul wasaaraha talyaaniga ayaa waxa uu yimid iyadoo qaar ka mid a dalalka xubnaha ka ah midowda Yurub ee dhanka dhaqaalaha uu sida xun uga saameeyey xanuunkan ay dalbanayaan deymo si qaaraan ah loo qaybsado bixintooda. Netherlands iyo Jarmalka ayaa iyagu ra'yigaas diidan, taasina waxa ay dhalisay inay isku dhacaan wasiirada maaliyadda ee aagga la yidhaahdo Eurozone. ra'iisul wasaaraha talyaaniga waxaa BBC-da u sheegay in madaxda Yurub ay hor taagan yihiin waa sida uu hadalka u dhigay taariikh aysan seegi doonin. It's a big challenge to the existence of Europe and to the history of Europe. We're not just writing pages in the books of economics. waa caqabad weyn oo halis ku ah jiritaanka Yurub iyo taariikhda Yurub. waxba kuma qorayno oo kaliya buugaagta dhaqaalaha, balse waxaan wax ku qoraynaa buugaagta taariikhda. waana arrin caqabad weyn ku ah taariikhda, mana waayi karno. aniga iyo hogaamiyaasha reer Yurub waxaana laga doonayaa inaan hor joogsanno caqabadda. wax shaki ah kuma jiro arrintaasi. waa haddii falcelinteenna ay noqon wayso mid laga midaysan yahay oo aanan xoogganayn. haddii Yurub ay ku guuldarraysto inay la timaado siyaasad dhanka lacagaha iyo dhaqaalaha ah oo xooggan, waxay wajihi doonaan dhibaatadii ugu weyneed tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. shacabka talyaaniga oo keliya ma murugaysno, balse waxaa si daran u murugaysan muwaadiniinta Yurub. Policy adequate for the biggest challenge since the Second World War. For sure, not only Italians, but European citizens will be deeply disappointed. heerka dhimashada ayaa iminka hoos waxay u soo dhacaysaa dalka talyaaniga, halkii 2 toddobaad ka hor ay maraysay 919 qof oo dhimasho ah. waxaa 24 saacadood ee lasoo dhaafay lasoo wariyey 542 kiis oo dhimasho ah. sidaasoo ay tahayna Giuseppe Conte waxa uu digniin ka bixinayaa in talyaanigu uusan isdhigan oo aan la dabcin xayiraadii dalka oo dhan la geliyey 9kii bishii Maarso. waxa uu ka biyadiiday baaq ka yimid qaar ka mid ah siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Lombardiya ee dhinaca waqooyi oo cudurku uu sida xun ugu dhiftay, kuwaasoo doonaya in tallaabooyin dheeraad ah oo adag si degdeg ah loogu soo rogo. mar ay halkaa booqdeen wafdi ka socday Laanqeyrta Cas ee Shiinaha ayaa waxa ay ka qayliyeen xayiraad jilicsan oo halkaa ay ku soo arkeen. talyaaniga iminka waxa uu doonayaa wax allaale iyo wixii saaxiib ah ee uu awoodo, iyada oo saadaasha ugu dambeysay ee la sameeyeyna ay muujinayso in dhaqaaluhu uu wiiqmi doono in ka badan 11% heerka qaanta dalkana ay sare u sii kici doonto. Faarax Lamaane waa u mahadsan yahay. bal markana Afrika aynu ku soo laabanna ee bangiga adduunka ayaa saadaalinaya in dalalka ka hooseeya Saxaraha Afrika ay markii ugu horreysay muddo rubac qarni ah geli doonaan dhaqaale kududsi xilli cudurka COVID-19 uu ragaadiyey dhaqaalaha caalamka. banka ayaa sheegay in dhaqaalaha gobolkaasi uu sanadkan hoos u dhici karo eber ilaa wax ka hooseeya 5 dhibcood. haddaba cudurkan safmarka ah ayaa saameeyey 52 dal oo Afrikaan ah, waxaana haatan la sheegaya in qaaradda ay ugu dhinteen ilaa iyo 558 qof. warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariye sare aan soy oo BBC Afrika ka tirsan. warbixinteedana waxaa nala socodsiinaysaa Kawtar Maxamed Abdullaahi. Afrika ayaa ka mid ah meelaha ugu dambeeyey ee uu gaaray cudurka COVID-19. jawaabta ay dalalka bixiyeen waxay ahayd mid degdeg ah, xuduudaha oo ay xirteen, bandow iyo karantiilka dadka u soo safray. durbadiiba waxaa hakad galay ganacsiga qaaradda. bangiga adduunka ayaa sheegay in helitaanka wax soo saarka beeraha oo yaraaday, alaabaha kala duwan oo sidii hore aan dalalka u gaarin, iyo shaqo la'aan baahsan ay dhalin karaan cunno yari soo food saarta qaaradda. saamaynta ugu badan ayaa waxa ay gaartay dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan Afrika. Nigeria iyo Angola waxaa la degay suuq xumida shidaalka, halka uu yaraaday dakhliga macdanta ka soo gala dalka Koonfur Afrika. waxaa xirmay wax soo saarka beeraha ee ay dalalka Itoobiya iyo Kenya u dhoofiyaan dibadda, halka ay joogsadeen dhaqaalaha dalalkaasi ka soo gala dalxiiska, maalgashiga tooska ah iyo lacagaha dibadda laga soo diro. waxaa xaaladdu ugu sii daray caqabadaha kale ee ay ka midka yihiin ayaxa ku degay qaybo ka mid ah bariga iyo bartamaha Afrika, abaarta saamaysay Koonfurta Afrika iyo colaadaha hareeyay dalal dhowr ah. bangiga adduunka ayaa ku taliyey in la hakiyo bixinta deymaha lagu leeyahay wadamada Afrika si dalalkaas ay u helaan dhaqaale ku dhow 80 bilyan oo dollar oo ay wax uga qabtaan xaaladda hadda taagan. waxa ay sidoo kale ugu baaqday qaaradda inay ka baaran degto sidii ay lacag kaash ah
cunno iyo adeegyada asaasiga ah u siin lahayd dadkeeda ugu saboolsan. isla cudurka coronavirus waxa uu sababay in qaar ka mid ah dalalka Afrika ay xayiraado adag ku soo rogaan isu socodka muwaadiniintooda. haatan waxaa taa lagu daray in la kala xiro qaar ka mid ah dalalka cudurkaas uu ku faafayo. tallaabadii ugu dambeysayna waxaa qaaday maamulka gobolka Gada ee Soomaaliya oo xiray xuduudaha gobolkaas uu la wadaago wadamada Kenya iyo Ethiopia kadib markii magaalada Mandheera ee ku taal xadka saddex geesoodka laga helay 2 qof oo qaba xanuunkan COVID-19. umurtaasi ayaa waxaanu ka wareysanay Cismaan Nuur Xaaji Mucallimu kusimaha gudoomiyaha gobolka Gado khadka taleefanka ayuu ugu waramay wariyahayaga Samiir Cabdullaahi Jaamac. waxaan iska xirnay xuduudaha gobolka Gada ee Ethiopia, Kenya xuduudaha ay hadda ugu xiran waa inta iyada ah. marka cudurka xaaladiisa taas ayaa loo xayiray. wax kaloo hadda dhibaato jiro ma jiraan. cudurka intuu ka baxayna way xirnaanaysaa xuduudaas. sidaad ogtahay in haddii dowladda Soomaaliya ayaa waxay xirtay duulimaadkii iyo dhammaan maxaan ku dhahdaa meelihii laga soo galay. maantana baaq adag ayaan bixinay deegaanada xuduudda lala helay sida Balad Xaawo iyo Doolow iyo maxaan ku dhahdaa Luuq in ayna soo gelin dadka la xayira si toos qof walba uu gurigiisana uusan ka dhaqaaqin. marka sida ayaa loo xayiray. Macallimu dadka degan degmada Balad Xaawo daryeel caafimaad iyo waxbarashaba waxay u doontaan dhanka kale ee Mandheera mararka qaar. marka adeegyadaas xataa ma jiri doonaan miya? waxaa la xayiray guud ahaan isu socodkii dalalka kale iyo dalka Soomaaliya. annagana waxaan fulinayna waa maamulkii dowladda Soomaaliya ka soo baxday. cudurka Ilaahay naga koriyo, Ilaahay waa dad ka dayn kara. laakiin waxaan amarnay markii aan aragnay cudurkii inuu aad u soo hadda saa'iday. maanta oo hadda la joogo Mandheera shalay waatan laga helay 2 kiis oo degdeg ah hadda laga helay. marka waxaan joojinay isu socodkii dalalkii dhammaan waa joojinay iyo waxyaabihii ka soo gudbay xuduudaha isaga soo gudbay waa joojinay. qof walba inuu gurigiisa ku ekaada, ganacsiyada la xira, maqaayadihii la fariisanay la joojiyo. intaas ayaa maxaan ku dhahdaa sameynay. guud ahaan shaqaalihii ee gobolka ku sugnaana waa howlgelinay. iyagana wayna u taagan yihiin in maxaan ku dhahdaa baaritaano degdeg ay sameeyaan. insha allahu tacaala dowladda Soomaaliya waxaan ku ballanay inay si degdeg maxaan ku dhahdaa u keenta teendooyinkii lagu dhisi lahaa goobaha karantiilka iyo dhaqaatiirta ilaalin lahayd ama baaritaanada ka shaqayn lahayd inay dowladda keentana waa ku ballanay. waana sugeyn haddii la raali ka noqdo. goobaha sida sahlan cudurka looga kala qaadi karo waxaa ka mid ah goobaha la isugu yimaado. marka ma qorsho arrintaas idinkaga aadanaya jirta mise oo keliya inaad xuduudaha xirtaan ayaad ku soo koobaysaan? maya inaan xuduudaha xirno kumaana soo koobin. waxaan qaadanay in dhammaan qof walba gurigiisa uu ku ekaada ku xayirnaada, uusan gurigiisa soo dhaafin. wixii cunno oo la cunayo qof walba gurigiisa uu dhigta, ganacsi ka qaata. dadka dhammaan guryahooda ay ku ekaadaan. goobaha waxbarashada waa la xiray, dugsiyada dhammaantood waa la xiray. marka wax isu soo baxaya male, qof kastaba gurigiisa in uu ku ekaado ayaan amarnay. waxaa jira dad reer tabareed ah oo garab rarato ah oo maalinkii waxay soo shaqeeyaan habeenkii quuta. marka haddii dadka dhan guryaha lagu celiyo kuwaas maxaa iyaga u qorsho ah? waxaan ka caawin karna insha Allah waa ka caawinaynaa. laakiin haddii cudur la sheega tabar waxba maxaan ku dhahdaa ma gelaysa. adigoo iska tabar yaraa haddii cudur kugu dhaca ayaa kasii daran. dadka dhammaan marka waa la xiriir guryahoodii aan la joogo. insha Allah wixii caawimaad oo la gaari karnana waa qasab waa isgaarsiinay. arrinta hadda ay su'aalaysa dowladda Soomaaliya waa ka sugeynaa in dadkaas ay nala caawisa. annagana dhammaan insha Allah waxaan jeclahay inaan caawin doono ka maamul ahaan. qof kastoo tabar yar gurigiisa lagu caawin doono haddii la raali ka noqdo. kaas waxa waa Cismaan Nuur Xaaji Mucallimu kusimaha gudoomiyaha gobolka Gado waxa uu waramay Samiir Cabdullaahi Jaamac. markaanse baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiir Cabdullaahi Jaamac. Samiir mahadsanid Caasha. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Cabdi Baadil Axmed oo jooga xerada qaxootiga ee Holhol. waxa uu baafinaya dadka kale ah Maxamed Cabdi Baadil, Xasan Cabdi Baadil iyo Faadumo Cabdi Baadil. dhammaan dadkaasi waxa ugu dambeysay iyagoo ku sugan Jigjiga sanadii 2011. haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiye Cabdi Baadil Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Holhol. Xaawo Cusmaan Jeelle oo joogta Yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah Luul Cusmaan Jeelle, Leyle Cusmaan Jeelle iyo Maxamed Cusmaan Jeelle. dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Beledweyne 2006. haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Xaawo Cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen. Dheeg Xasan Cadde oo jooga
xerada qaxootiga ee holhol waxa uu baafinayaa bashiir cabdi cali nuur waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan jigjiga sanadii 2008 haddaba haddii uuna maqlayo bashiir cabdi cali nuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo dheeg xasan cadde iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee holhol amaba telefoonka nambarkiisu yahay 253783 abuukar cali eenow oo jooga yemen waxa uu baafinayaa muumino cali eenow bashiir cali eenow iyo maryan cali eenow waxaa ku wardambeysay ayagoo ku sugan baydhabo 2008 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo abuukar cali eenow ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay yemen cabdiweli yuusuf axmed oo jooga xerada qaxootiga ee holhol waxa uu baafinaya ayuub yuusuf axmed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan talyaaniga sanadii 2009 haddaba haddii uuna maqlayo ayuub yuusuf axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cabdiweli yuusuf axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee holhol suleymaan guuleed cumar oo jooga yemen waxa uu baafinayaa mustafa guuleed iyo suleekha guuleed waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan boosaaso 2005 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo suleymaan guuleed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen cabdiqaadir yuusuf dheeg oo jooga xerada qaxootiga ee holhol waxa uu baafinayaa maxamed yuusuf dheeg waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yemen sanadii 2017 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed yuusuf dheeg amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiya cabdiqaadir yuusuf dheeg iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee holhol asli cabdalla salaad oo joogta yemen waxay baafinaysaa fartuun cabdalla salaad iyo maxamed cabdalla salaad waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan balcad 2003 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo asli cabdalla salaad ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen safiye ibraahim cabdi oo joogta xerada qaxootiga ee holhol waxa ay baafinaysaa cabdiraxmaan axmed cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan jarmalka sanadii 2018 haddaba haddii uuna maqlayo cabdiraxmaan axmed cabdulaahi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo safiye ibraahim cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee holhol amaba telefoonka nambarkiisu yahay 95377468 aamina isaaq cabdi oo joogta yemen waxay baafinaysaa neley isaaq cabdi iyo xasan isaaq cabdi waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan baydhabo 2004 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo aamina isaaq cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen maxamuud xuseen maxamed oo jooga yemen waxa uu baafinayaa axmed xasan maaj waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan jabuuti sanadii 1994 haddaba haddii uuna maqlayo axmed xasan maaj amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo maxamuud xuseen maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka yemen amaba telefoonka nambarkiisu yahay 9677 shumay shaacir sheekh oo joogta yemen waxay baafinaysaa xamsata shaacir sheekh iyo shaxshaxley shaacir sheekh waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan marko 2009 haddaba haddii ayna maqlayaan xamsata shaacir iyo shaxshaxley shaacir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo shumay shaacir ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen cali cumar axmed oo jooga yemen waxa uu baafinayaa burhaan jaamac mooge waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan hargeysa haddaba haddii uuna maqlayo burhaan jaamac mooge amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cali cumar axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen cabdinaasir shirwac dhaqane oo jooga yemen waxa uu baafinayaa cabdisamed shirwac dhaqane batuulo shirwac dhaqane iyo barni shirwac dhaqane waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan beledweyne 1999
2023 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo cabdinaasir shirwac dhaqane iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay yemen bilan caraaya nageeye oo joogta yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah leyle xuseen gacal iyo siraad maxamed nuur waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan talyaaniga sanadii 1999 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo bilan caraaya nageeye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen maryan xuseen barow oo joogta yemen waxay baafinaysaa ruqiyo xuseen barow canab xuseen barow iyo maxamed xuseen barow waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan afgooye 2008 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo maryan xuseen barow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen baafinta ugu dambeysana waxay naga soo gaartay Faadumo Cali Barre oo joogta yemen waxay baafinaysaa liibaan maxamed ibraahim waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan muqdisho sanadii 2004 haddaba haddii uuna maqlayo liibaan maxamed ibraahim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Faadumo Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen idaacadiina waa naga intaas waxaynu balanaa 5 galabnimo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo